socdaalka gobolada galbeedka iyo Gabiley ee madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu daboolka ka rogay laba arrimood oo waaweyn kuwaasi oo ku lifaaqan tallaabooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee uu madaxweynuhu sameeyay intii uu ku sugnaa magaalada Gabiley. haddaba maxaa ku qarsoon safarkan gobolada galbeedka ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdiga uu hogaaminayo? maxaynu si ka ogaan karnaa labada arrimood ee uu daboolka ka rogay? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalinimadii shalay ahayd ka ambabaxay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo ay markiiba gaareen maadaama aanay masaafo badan isu jirin bartilmaameedkii safarkooda oo ahaa magaalada Gabiley ee xarunta gobolka cagaaran. madaxweynaha ayaa halkaasi si ballaaran loogu soo dhaweeyay inkasta oo dadkii la filayay inay ka hor yimaadaan madaxweynaha aanay ka hor imanin, waxaana loo galbiyay magaalada gudaheeda iyadoo habeennimadii xalayna uu halkaasi ku bariyay, maantana uu ka qayb galay jaamacadda Timcadde qalinjebinteeda. intaasi kadibna madaxweynuhu waxa uu u dhaafay gobolka Awdal. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Gabiley waxa uu hirgeliyay mashaariic kala duwan oo ay ka mid tahay qiimo dhimista laydhka iyo biyo ballaarinta magaaladaasi, oo uu madaxweynuhu tallaabo u qaaday sidii ay Gabiley u heli lahayd biyo macaan. habeennimadii xalay ahaydna madaxweynuhu waxa uu la kulmay waxgaradka iyo qoorweynta gobolka Gabiley, kuwaasi oo ay ka wada hadleen tallaabooyinka horumar kale ee ay xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ka damacsan tahay gobolka Gabiley iyo mashaariicda muranka badan dhaliyay oo uu ka mid yahay banka Wajaale, kaasi oo ilaa iyo haatan ay isku diidan yihiin dadka deegaanka iyo xukuumaddu, iyadoo sida ila wareediyo warbaahinta xogaal u sheegeen aan arrintaasi meel la isla dhigin. hase yeeshee waxa ay ka mid ahayd arrimihii habeennimadii xalay ahayd laga wada hadlay. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa safarkiisa Gabiley waxa uu daboolka ka rogay mas'uuliyiinta deegaankaasi ka soo jeeda inay gebi ahaanba saameyn ku lahayn, oo ay gebi ahaanba ku guuldareysteen isku xidhkii deegaanka iyo xukuumadda, waxaana muuqanayay gaab weyn oo u dhaxeeya, taasi oo laga dareemayay soo dhaweynta madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ay dad aad u tiro yar soo dhaweeyeen marka loo eego soo dhaweynihii gobonimada lahaa ee ay Gabiley ku qaabili jirtay madaxda. taasina waxay muujinaysaa daldaloolo iyo xagal daacooyin ka yimi mas'uuliyiinta ku metela xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro degmada Gabiley, inkastoo la odorosayo isku shaandhaynihiisa soo aadan inuu madaxweynuhu qaar badan bedeli doono. hase yeeshee socdaalladiisani waxa ay madaxweynaha siinayaan halbeegyo bartilmaameedsanaya shakhsiyaadka madaxweynuhu calmaday saamaynta ay deegaamadooda ku leeyihiin. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xidhiidh +252 socdaal inuu ku tagona waxay u tahay guul weyn maadaama ay tahay muraayadii uu ka dhex arki lahaa dadka uu doortay iyo dadkoodu sida ay isugu xidhan yihiin. qodobka labaad ee socdaalkani uu daaha ka rogay ayaa ah magaalada Gabiley oo muddo dheer doonaysay inay gobol noqoto inaanu madaxweyne Ciro gobolkii u sidin, hase yeeshee hadal lagu qanciyay. waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro habeennimadii xalay ahayd sheegay gobolnimada Gabiley inay ficil tahay waqtigii hore uu isagu sheegay in ay hadal ahayd, maantana ficilkeedii uu la iman doono oo laga sugo, hase yeeshee maanta aanu sidinin. noqoshada Gabiley ee gobolka ayaa waxa hor yaalla caqabado waaweyn oo ay ka gudbi kari weyday madaxdii isaga ka horreysay. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa la filayaa in aanu gidaarkaasi jebin karaynin, maadaama oo degmooyinka waddanka badidoodu ay doonayaan gobollo, haddii ay Gabiley noqotona ay iyaguna noqonayaan. miisaaniyadda Soomaaliland oo yar iyo dastuurka oo ka soo horjeeda gobollada badan ayaana ka mid ah caqabadaha waaweyn ee sida loo jabiyaa ay adkaanayso. labadaasi fariimood madaxweynuhu markii uu midna helay midna gudbiyay waxa uu sii gudbay gobolka Awdal, iyada oo aynu warbixinaheena soo aadan ku falaqaynayno tallaabooyinka uu ka qaadi doono gobolkaasi ku yaala galbeedka Soomaaliland.